الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo bisha 12aad ay tahay 5/2019 waxaan isugu nimid sidii caadada inoo ahayd shirkii toddobaadkiiba mar la qabto khamiislaha ahaa oo isugu imanayeen golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana maanta shir gudoominayay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxyaabaha maanta shirkan golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya la isku soo qaaday waxa kamid ah guud ahaanba ammaanka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya arrimaha fatahaadaha oo aan ognahay in roobabkii ka da'ay gobolada Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya oo dhanba ay dhibaatooyin geysteen toddobaadyadii la soo dhaafay sidoo kalena arrimaha isu furka jidadka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo halka ay marayso dhismaha maamul magacaabida degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo isbedelna laga filanayo degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaarkood in sida ugu dhaqsiyaha badan golo deegaan loo dhiso madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin guud wuxuu ka siiyay guud ahaanba golaha wasiirada safarkiisii uu ku tagay magaalada Muqdisho xarunta ummadda Soomaaliyeed iyo kulamo muhiim ah oo halkaas kula qaatay madaxda qaranka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed sidoo kalena wuxuu warbixin guud ka siiyay golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya safar uu ku tagay dalka walaalaha aynu nahay Djibouti isagoo kulamo badan la soo qaatay wufuud kala duwan oo halka joogta markii ugu dambeysana madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ay la kulmeen asaga iyo wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo warbixin guudna ka siiyay guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo dawladda Djibouti ay ballan qaaday sidii ay horeba u hareer istaagi jirtay dadka Soomaaliyeed inay u hareer taagan tahay gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay waxyaabo badan ay u soo ballan qaadeen inay ka caawin doonaan wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Isaaq Cali Suwag baa warbixin dheer halkaas ka soo jeediyay guud ahaanba amniga gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay sidii uu ahaa iyo waxyaabaha horumarka u ah ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed kuwa Koonfur Galbeed iyo AMISOM howlgallo ay ka fuliyeen gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoona tilmaamay in Allah uu naxariistay gudoomiyaha degmada Awdhiigle uu halka ku dhintay oo qarax ay u dhigeen nimankii gumaadka ummadda Soomaaliyeed oo la dagaalamay horumarka iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo haldoorka Soomaaliyeed inay maalin walba dhigooda ay daadiyaan iyadoo halkaasna tacsiye si guud loogu diray maamulka gobolka Shabeellada Hoose uu ka tirsanaa gudoomiyaha degmada gaar ahaan guud ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodna gaar ahaan sabir iyo iimaan ilaahay uu naga siiyo inaanay u istaagi doonin haday mid iyo laba dilaanba dawladnimada Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya